السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو وناكسن داودياشنا قيمة يقايها مدن مقال كنا مانتا وحنو كاهل دونا شركة شيسين تبيلها الدقاق البيت كقول كمدوك وكفر من مقالة قلدوغب فضلا سبسكرايب صار تسمو قال لذا ينسو قل إنو مالي ولي بعضو نقطو داوداها أهرية مركز داودا لو ذاك أصحاب تاذوحي أفكار غيبتكم انتقايا نوغوري بكرتا وأنكم سنتي سيدا قروح بدن أدمر واللي بوقف العلسان مقالة عن يسوق لنا بوجين يوتيوب كا وجه قال بعد الشروينها دي وشيسين تبيله دقا قلبيت كجوال كمدوق أو كفر من مقالة قلدوق جوال كمدوق أيها وحا كقريب قال مسؤولين كلا سعودة الدولة قبل ذي بونتلان يقل مدوق حلي معنا كالسعودة الله بعض أقل برلمان كفدرال كالصوماليا سياسيين وحقرد قيبها كلا دوان برشدا furitaan kan wajiga labaad ee shirweynaha dib u heshiisiinta beelaha deegaanka galbeedka gobolka mudug ayaa waxa uu horeeyay shirka furay ugaas cali ugaas maxamed لا خير في كثير من وجوههم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما آيات سورة النساء كجده بقول يتوان أفر آياتها قرآن كوكلا وسيدي الله شيء هذا أرنت أسعته وحكى لما تشران معروف يا إسلام يا صدقه يا خير السوء ما أن تشرين أيدي بانو السوق نمد أيدا ولا لها يكسر دوينينا وأول هوش كسر دماتي بندير اللي وحانو لنا سود وهذا ولا ليال وأدمهت سنتهين وحد كسر دواتان كالقعل يا وناق يا قلب وناق سنان يا خير سلوت إلهي هنوهر قليان ولان إلهي وحانو كبريينا أرنت ما أنت اللوضو وقالوا كيهي وأسوي إليها ساكو السعودة إلهي هنوهر قليان إلهي كبريينا إلهي وحانو كبريينا إني نوصعته نوداس يا وناقاس يا إسرابيتين كاس يا إسجعلي كاس يا إسو سعود كاس إلهي أساسا كبريينا دكتور عبد العزيز علي ugaas oo isaguna ka hadlay munaasabadaasi ayaa fariin u diray bulshada magaalada Galdogob kulana dardaarmay inay si wanaagsan u soo dhaweeyaan walaalahooda kale ee ka kala yimid deegaamada kale ee dariska la ah anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca boqortooyada Tanade ee reer Ugaas Maxamed iyo magaca beesha gogasha dhigtay ee Tanade iyo magaca degmada Galdogob iyo dhammaan bulshaweynta ku nool degmada Galdogob waxaan idin leeyahay walaalaha inoo yimid soo dhawaada waxaad ku soo dhawaataan gacmo furan waxaad ku soo dhawaataan qalbi furan waxaad ku soo dhawaataan gurigiinii labaad waxaad ku soo dhawaataan gacaltooyo waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dadka halkan jooga goobtan sharafta leh soo ajiibitaankii ay soo ajiibeen qadada aan ku sharafnay fadhiga koowaad ee soo dhaweynta annagoo ah qoyska reer Ugaas Maxamed waxaan diri doonaa dhowr baaq ilaa 5 baaq waxaan ku hadli doonaa afka beesha Tanade ama leelkase baaqa koowaad ee aan dirayo waxaan u dirayaa reer Galdogob waxaan leeyahay nabiyullaahi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri idaa ataakum كريم قوم فاكرموه وفي رواية إذا جاءكم كريم قوم فاكرموه هدو إذن مادو عد قف كرامة كله ومسؤول كأه هيرا كله هدو إذن مادو كرامية ومسؤولية سكو كرامية معنى هذا وحي تاي وحا إنو يميد لابنتي مسؤولينتي دولتها heer federaal iyo heer maamul goboleed madax dhaqameedkii nabadoonnadii culimmadii haweenkii ganacsatadii iyo dhalinyaradii iyo in kale oo ka badan oo walaalaheen saacada sida daraaddeed dadka kuramada ah ee ku karaameysna deegaankoodii hadday deegaankoodii labaad yimaadeen waxaan u baahanahay inaan imtisaalan liqowlihi sallallahu alayhi wasallam idaa jaakum kariima qawmin fakrimuuh inaan karaamayno nabadoon Cismaan Nuur Qayd oo kamid ah ergada ka socota beesha Sacad ee magaalada Galdogob lagu soo dhaweeyay ayaa isaguna ka hadlay munaasabadaasi sheer Galdogob waan u nimid galabtay oo casir
axadaad ah waxaan ugu nimid wanaaggii aan ku wada hadallay ilaahay baan uga mahadhaynaa ilaahay haddana waxaan uga mahad celinaynaa ilaahayna garansiiyey nabaddaas wanaagsan iyo israbitinka wanaagsan iyo wixii foosha xumaa ka qoobeyntooda ilaahay baan uga mahad celinaynaa ilaahay inuuna waafajiyo oo uu naga aqbalo baan ilaahay ka baryaynaa. waxaa kale oo iyadoon ka hadashay shirka gudoomiyaha ururka haweenka maamul goboleedka Galmudug waxa ayna bogaadisay in la joojiyo dagaal beeleedyada ku soo noqnoqonaya gobolka Mudug iyo nawaaxigiisa waxayna tiri waxaan mar labaad si farxad iyo hambalyo iyo didilada ka hambalyeynaya martiqaadkii shalay ugaaska iyo sharaftii iyo gobashii ugu soo dhaweeyeen beesha reer Talade ama leelkase waxaan leeyahay waa wax ugu faana hambalyo oo ka hambalyeynayna waxaan rabaa hadalka la soo gaabiyaa la yiri adeerayaal suldaamo hooyooyin macnaheedu wiilal gabdho kuma jiraan shalay waxaa ku jirta wiilkii ugaaska wuxuu yiri haweenku warshadahoodii wax soo saarkoodii bay burburinayaan adinka wixii aan soo saarnayna burburinaya agoontii asaydii walaala'aantii gablankii wiila'aantii waa ka soo gudubnay yaa inaloo celin ina rag baan leeyahay ambasadorra idinku jiro waa la badan yahay yaa naloo celin dhibaatadii aan soo marna qax iyo dhiigbax iyo gabargeeda hoos isku foolata iyo foolxumaan ka dharagnay baroor baan la hooyanay baroor baan la soo toosnay asay baan dishay agoon baan la daala dhacnay ilaahay ka xishooda inagana inaga xishooda allana ka baqa yaa inaloo celin leelkasa iyo sacdow inta kalena waa gudbi doonaa anigoo afka gabdhaha ku hadlaya gabdhahana waxaan leeyahay walaalayaal haddii ay jiri jirto sida shakiga shalayba loo sheegay mar horaan ka tanaasulay ragga aan ogeysiino si ay u wada ogaadaanna dumarka hal akoon baa ka dhaxeeya halka akoon aan ka xiranna ragga hadday colaad sameeyaan war akoonka ma ka xiranaa ragga colaadoogaa ma ka xiranaa nabadoonka wiilka diyadiisa qaadayo geedka ku xiray oon bacmadooda qaadanaya akoonka ma ka xiranaa gabdhihii waa ballameen nabadda waxaan leenaha hambalyo waxaan leenaha beelaha walaalaheen ah waad garateen shirkana fayskii labaad u gudbay waa wax lagu farxaa waxaan idin dareensiinaynaa inaanan maxay ahayto gacan dambe oo gabdheed aynaan ku qaslin markaad kulaylka iyo ka timaadaan dagaalka haddii akoonka laydinka xirto waad maskaxdu idin dhagan berrina ma dagaal tegaysaan berrito ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu allaba aan istaagan karino weligood isqabaro waa mahadsantihiin nabad wanaagsan farxad wanaagsan annagu way faraxsanayaan farxadda ma laga dhumin hala ilaaliyo dumarka assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaa sidoo kale munaasabada ka hadashay gudoomiyaha ururada haweenka 9 gobol ee Puntland waxa ayna u mahadcelisay gudiyada ka shaqeeyay heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee markaas ay colaad u dhaxmartay waxayna tiri waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan culimada dawladda Puntland Galmudug federaalka iyo nin kasta iyo qof kasta oo mas'uul ah ururada haweenka gabdhaha gudoomiyaasha nabadda ee Puntland iyo Galmudug bacda salaam runtii aad baan ugu faraxsanahay meel nabadeed inaan maanta soo istaago inaan soo istaagana sabab waxaa u ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha aad bay u mahadsan yihiin wax badan inima dhahayago hadalka waa idiin soo gaabina insha allah runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan shirkan ka soo qayb galo special gobolka Mudug waa markii ugu horreysaan imaado Galmudug muxuu ahaa Galdogob waa la mid waa markii ugu horreysay iyadana farxad bay horta koow ii tahay inaan imaado goboladan oon ka sheekeeyo ilaa dad badan baan matalaa oo aan ka imid oon uga sheekeyn doono wanaagga yaalla meeshaan iyo quruxda taalla runtii waxaa farxad ii ah maanta shirkan inaan taaganahay
anigoo matalaya magacii haweenka ururada puntland 9 gobol ee puntland waxaan leeyahay waxaan isu istaago oo keliya inay tahay inaan idinka idin dhiirigeliyo dadkii shirkaan maanta abaabulo quruxda badan ama ka soo shaqeeyay nabadan quruxda badan waxaan leeyahay horta qof walba wuxuu ka shaqeeyo khayr isagoo ajarkiisa helaya وانا إني كم هذا كلامي يا جماعة تساعد أنت عيد قصة قصة شقيسة أجر كذا قال له إله سبحانه خد بسينا وهاي إني بقرية ستة دور بعد الشيء وضيع بقول الإسلام بقول هو شوكته مرة جماعة نفسي قد وحنا ليه ورضيع شغل مقاطع نودها على جواد الشقية إن شاء الله بالملاك هذا ما سنتين عيد قصة قائسيسة هاي قدومية جنود وتصير قفل ما تجي حرينا تولى تاجي سلامي وقفل شيء يسار عبابة على جحفه gabagabadii munaasabadda waxaa hadalka qaatay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo shirka soo xiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u mahad celinaynaa horeyna nasugu kaaya keenay oo heshiiskii ka horeeyay waafajiyay ragii ka shaqeeyay oo sanatarada ugu horeeyeen iyo generaalada iyo odayaashii iyo culimada diinka ka bahayay iyagana Ilaahay ka amal mariyo naxariis iyo jannaha ugu bedelo shirkan ku xiga inta nagu soo dhaweysay oo magaaladii Goldogob aan maanta qof ka harin oo banaanka u soo baxday dhamaan waxaan leeyahay mahadsantiin waa arkaynaa sida nabaddu idin kaga go'an tahay annaguna waxa idin sidnaa mid ayada lamid ah haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idmo runtii aan kala har lahayn waana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa inaan noqoto nabadani mid mira dhasha oo dalkan iyo deegaankan dadnimadoodii iyo xasiloonidoodii iyo sharaftoodii soo celiya sida loo sheegayna waxaan filaynaa inaan gaarsiino gobolka Mudug intiisa kale iyo gobolada kale Soomaaliyeed haddii alla yiraahdo Maxamed Cabdilcasiis Saciid Nuux Khan warbaahinta qaran media magaalada Boosaaso taariikhda goor hore gasho Galdogob waa xarun gobeed Galdogob waa xarun gobeed gabar qurxoon yaa galiyadin gabar qurxoon yaa galiyadin Galdogob ay u gaariyeen gabar qurxoon yaa galiyadin Galdogob ay u gaariyeen bal u fiirsada hadda san Soomaali u heshiira wuxuu noqon aan ka mashquuliyay marka gacanta isqabsada midooba Soomaali horkaca marka waxaan leeyahay maanta dadkii isku diri jiray meeshan waa tageen waa u dhamaatay ku daadato danaysta waa ku daadato danaysta waa ku daadato dib dambe loo dagaalima danaysta waa ku daadato dib dambe loo dagaalima bohorgaashow dagaalya dhig dadkaanu waa ka dayrayaan dufku bax kii dagaal waadow dadkoo dhammaaba ka dide dufku bax kii dagaal waadow dadkoo dhammaaba ka dide